halkani waa BBC waad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar Facebookga iyo barteena internetka ee bbcsomali.com jimco wanaagsan kulanti wacan dhageystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan waa 4 bisha December sanada 2020 arimahan uu barnaamijka saaka idinkugu heynana waxa kamid ah dadka magaalada Beledweyne oo saaka kuwa bariistay dhawaaqa rasaas bartamaha magaalada ka dhacaysa madaxa sirdoonka Mareykanka oo sheegay in Shiinuhu yahay halista ugu weyn ee xurriyadda xilli wasaaradda dhagaashaandhigga ee dalkaas ay liiska madow ku dartay laba shirkadood oo waaweyn oo dalkaas laga leeyahay Soomaali muhaajiriina oo ku tabaalaysan wadanka Liibiya oo sheegay in muddaba ay baadigoobayeen sidii dalkooda hooyo dib loogu celin lahaa hadaba maxaa kamid ah dhibaatooyinka ay dalkaas ku muteen in macnaana la jir dilo inagula dhibciyo baaco koronto nagula qabto sila qanuuniyo badan gabdhaha ajaanib faraxumaysanayso adigana waxba aan ka qaban karin dhaqaaliyahanada Soomaaliya waxay ka digayaan in hadaanan si degdeg wax looga qaban sicir bararka shilinka Soomaaliga ay arintaas dhibaato weyn u horseedi karta ganacsatada yaryar waxa ugu badan oo hantidooda ku cabiran tahay oo ay ku kaydsan tahay waa shilin Soomaaliya marka hadii shilinka isticmaalkiisa uu istaago sida hadda muuqata in waxa baaba'aya dadka hantidoodii magaalada Muqdishona waxa lagu qabtay aqoon kororsi hasaabaha la xiriira qodobadaas iyo kuwa kale oo Soomaalida caalamka ku saabsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan uu soo saaray Xasan Cali Geyle anigoo Cabdi Ibraahim Caga yarna in la socodsiinaya balse marka hore barnaamijka waxaan ku bilaabeynaa wararka caalamka iyo Fadmo Macalin Abukar mahadsanid Cabdi Fataax madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa wareysi uu siiyay telefishinka CNN wuxuu ku soo bandhigay qorshihiisa ku aadan la dagaalanka coronavirus wuxuu sheegay inuu ka codsan doono dadka Ameerikaanka inay xirtaan maskarada wajiga 100 maalmood ee ugu horeeya marka uu xilka qabto una soo saari doono hab heer qaran ah oo lagu xakameynayo cudurka wuxuu xaqiijiyay in qabiirka sare ee cudurka faafa Anthony Fauci uu sii haysan doono shaqadiisa isagoo intaas ku daray in isla marka uu Dr. Fauci ansixiyo uu ku qancin doono dadka Ameerikaanka inay kalsooni ku qabaan talaalka Mr. Biden ayaa ku booriyay aqalka sare ee Mareykanka inay aqbalaan barnaamijka lagu caawinayo qoysaska Mareykanka iyo ganacsiyada yaryar ee markaasi uu saameeyay xanuunka safmarka ah Mr. Biden ayaa sidoo kale sheegay inuu u maleynayo inay muhiim tahay in Donald Trump uu ka qayb galo xafladda caleemasaarkiisa oo dhici doonto bisha soo socota si loo muujiyo inay soo afjarantay xasaradii uu abuuray madaxweynaha hanaanka xilku wareejinta maamulka Biden ayaa si nabad ah uga socota aqalka cad Barasabka gobolka California ee dalka Mareykanka ayaa ku dhawaaqay amar ah inay dadku guryaha joogaan kaas oo dhaqan gali doona marka tirada sariiraha yaala qaybaha daryeelka gaarka ah ee isbitaalada ay gabaabsi noqdaan xayiraadahan ayaa noqonaya kuwii ugu ba'naa ee kala fogaanshaha bulshada marka loo eego qaybaha kale ee Mareykanka Masar ayaa sii daysay 3 qof oo dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka oo ku jira xabsiyo aad u adag kadib markii ay la kulantay cambaareyn caalami ah madaxa barnaamijka xuquuqda shaqsiga ee Masar Gaasir Cabdulrasaaq iyo 2 qof oo kale oo ay isla shaqeeyaan ayaa lagu eedeeyay inay ku biireen urur argagixiso iyo faafinta warar been abuur ah ugu dambeynna waaxda gaashaandhigga Mareykanka ayaa 2 shirkadood oo waaweyn oo Shiinaha laga leeyahay ku dartay liiska madow ee shirkadaha ay leeyihiin amaba ay maamulaan militariga Shiinaha shirkadda samaysa kaararka telefoonada SMIC iyo shirkadda shidaalka ee Sinong ayaa loo diidi doonaa inay isticmaalaan qaybo ka mid ah tiknoolajiyada Mareykanka wararkii caalamkana waa inaga inta Cabdi Fataax aad baad u mahadsan tahay Fadmo Macalin Abukar taasi had wararka caalamka ay gurigeeda nagala socodsiinaysa halkaad kala socotaana waa BBC ee dhageystayaal u diyaar garooba qaybaha kale barnaamijka aynu ku bilownay war haatan ina soo gaaray ayaa sheegaya dadka magaalada Beledweyne in saaka ay ku waabaristeen dhawaaqa rasaas bartamaha magaaladaasi ka dhacaysa ilaa haatan se lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi bartamaha magaalada ka dhacay hadaba waxaan intaanan hawada soo gelin daqiiqado ka hor khadka telefoonka kula xiriiray Cali Daahir Xirow oo ah wariye degan magaaladaas waxaan weydiiyay bal sida ay wax u bilowdeen
saaka markii waagu noo bariyay aroortii horaan waxaan kusoo toosnay shanqarta xabadaha oo meel bundada kaliga dhagax jabis ay yiraahdaan oo ama bunda koowaad dadku u yaqaanaan magaalada beledweyne oo halkaas bar control ciidamo booliis ay joogeen laga maqlay runtii anigu gurigan ku jiray markii aan meelaha wareystan waxa la ii sheegay in kooxo dhalinyaro oo iska dhex abaabulay magaalada oo kasoo horjeedo imaashaha madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle oo lagu waday in saaka uu soo gaaro magaalada ay xabadeeyeen ciidankii booliiska bartaas controlka joogay iyo bulshadii magaalada qaybaheeda kala duwanintooda badan oo iyaguna la soo toosay mudaharaad iyo taayirro gubis iyo buuqaad u badan oo ka taagan magaalada. caliyow haatan xalku waa sidee? runtii cabdifitaax xaaladdu aad ay u kacsan tahay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle oo la xiriiray wuxuu ii sheegay in ay ciidamo fara badan oo Soomaaliya iyo kuwa ajnabi intaba ka amar qaatay ay joogaan balse ay weli turayaan shacabka dadka shacabkaayna waxaad moodaa inay si aad uga soo horjeedaan oo ay u diidan yihiin sheegista ama mar walba oo la sheego in safar madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle la doortay dhawaan uu ku imaanayo magaalada beledweyne. ma ciidamadii magaalada banaanka ka joogay baa soo weeraray mise dad isabaabulay ayaa soo weeraray? runtii qaybo kala duwan oo xiriir la sameeyay waxay ii sheegeen in dadkani ay yihiin dad magaalada dhexdeeda iska abaabulay ay yihiin aanay ahayn ciidankii banaanka jiray walow qoliyaha maamulku ay leeyihiin waa ciidankii banaanka jiray oo soo gala xalay habeenimo magaalada gudaheeda sida ay leeyihiin balse xiriir aan sameeyay waxa la ii xaqiijiyay inay ahaayeen dhalinyaro magaalada dhexdeeda iska abaabulay. bal khilaafkan muxuu salka ku hayaa? wuxuu salka ku hayaa dhismaha maamulka Hirshabelle oo ay dadku dhaliilsan qaabka loo sameeyo oo qaybsigeeda iyadoo taasina ay ka timid madaxweynaha 4 sano dhamaatay waxaa madaxweynaha ahaa maamulkaasi shakhsi ka soo jeeda gobolka Hiiraan iyadoo haddana madaxweynihii uu xilka uu qabtay taladaasi madaxweyne ku-xigeenkii hore ahna shakhsi ka soo jeeda gobolka Shabeellaha Dhexe iyadoo dadka reer Hiiraanna ay awood qaybsiga xaggeeda ay tahay buuqa maalmahan socda waxyaabaha ugu badan dadku ay tabanayaan waxay tahay mar haddii madaxweynihii Shabeellaha Dhexe ay la wareegeen in caasimadii magaalada beledweyne loogu dhawaaqo taasoo ay tahay hadalhaynta ugu badan dadkan hadda dibadbaxyada wada iyo dadkan hadda hubka wata intaba sababaha ay la soo jeedaan ay tahay arrimahaas wax la xiriira. wax dadaala oo lagu xalinayo dagaalkan iyo khilaafka ka sii horeeyay ee ka taagnaa magaalada beledweyne haatan miyay soconayaan? runtii waa jiraan dadaalo aad u xoogana socdo oo dhinaca dowladda federaalka ay wado Hirshabelle dhinaceeda ay wadaan odayaasha dhaqanku ay wadaan labadii maalmood ee ugu dambeysay waxaa socday dadaalo ku aadan odayaasha dhaqanka oo shirar lahaa samaysana guddi 27 ka kooban oo ay wadeen inay maanta la kulmaan oo ay hor fariistaan madaxweyne ku-xigeenka oo hore ay u diidanayeen bal inay dhageystaan dhaliishoodana iyo waxa ay tabanayaanna ay sheegtaan. dhinaca kale waxaa shalay magaalada soo gaaray wasiirka arrimaha gudaha iyo heshiisiinta dowladda federaalka Soomaaliya General Mukhtaar oo ujeedku u yimid ay ahayd xalinta khilaafkaas magaalada ka taagnaa iyo in xog waraysi uu la yeesho odayaasha dhaqanka iyo qaybaha bulshada waxna dadka reer Hiiraan ka dhaxeeyaan waxna qaybaha hadda kacdoonka wado ay gaar u tahay oo tabasho ay tabanayaan marka waxyaabahaas oo dhan inuu dhageysto Hirshabellena uu dhageysto kadibna uu isku keeno ay ahayd sababta u yimid wasiirku magaalada beledweyne odayaasha dhaqankooda qudhooda ilaa xalay waxay wadeen dadaalo ku aadan in saaka aanay waxba dhicin madaxweyne ku-xigeenka oo muddo usbuuc ka badan isaguna jooga magaalada muddo 2 jeer ka badan wuxuu dhigay gogol oo uu odayaasha ugu yeerayo bal inay wada hadlaan tabashadoodana uu dhageysto taasoo odayaashuna ay ka diidsanaayeen isku soo duuba dhinacyada jiroo dhan dadaalo waa ay socdeen la rabay in lagu hakiyo wax walba oo dhacaya haddana waxaa muuqanaysa in mas-uuliyad darro aad u badan ay meesha ay ka jirto cabdifitaax. waa tahay kaasi waxa uu ahaa cali daahir xirow oo ah wariye degan magaalada beledweyne oo khadka taleefanka goor dhaweyd iigu waramayay bal Facebook aan si qaar kamid dhageystayaasheena halkaas raayigooda toos kaga soo dhiibanaya waa Cabdisalaam oo ka soo qoray qadar waxa uu leeyahay dagaalka beledweyne waan ka xumahay allaha kala qaboojiyo waqtigan uma qancin in dadkaasi ay dhibaato galaan Mustafa Maxamed Calin wuxuu leeyahay dagaalka hal la joojiyo waayo shacabka barakac iyo dhibaato kale haatan uma si dulqaadan karaan Ardoon
xuseen wuxuu leeyahay xiisada ka socota magaalada Beledweyne oo saakay xabad kuwa barisatay iyo waliba mudaharaad xoogan oo bilowday wadooyinka magaalada waxay la tahay in la soo qaboojiyo oo arintaasi la dejiyo waxaan qaar kamid ah dhageystayaasha BBC ee Facebook ra'yigooda halka toos uga soo dhiibanayay dhageystaha ugu dambeeyna muusan sheegin halka uu warbixintiisaas ka soo qoray bal markana wararka caalamka aynu eegne sidaad warkaba ku maqlayseen wasaaradda gaashaandhigga ee waddanka Mareykanka ayaa waxa ay liiska madow ku dartay laba shirkadood oo weyn oo laga leeyahay waddanka Shiinaha ama waliba shirkadaha militariga dalkaas uu maamulo sarkaal sare oo dhanka sirdoonka Mareykanka ugu sareeyana waxa uu sheegay dhinaca kale in Shiinuhu uu tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka uu ahaa halista ugu weyn ee dimuqraadiyadda iyo xorriyadda waa sida uu hadalka u dhigay hadaba faafahinta warkan waxa soo akhriyay oo haatan studio uga soo biiray Xasan Cali Gil Xasan oo bal ka hormar liiska labadan shirkadood lagu daray Shiinaha عبد فتاح شركتها شينها أمريكان كوليس كمدو كدري وحكمت شركتها أما شركة SMIC iyo shirkada kale ee shidaalka iyo gaaska ka shaqeysa kuwa oo haatan laga bilaabo aan u suurtagali doonin inay helaan qalabka iyo farsamada laga leeyahay gudaha dalka Mareykanka guud ahaan 35 shirkadood oo laga leeyahay dalkaasi Shiinaha ayaa haatan ku jira liiskaasi madow ee Mareykanka gaar ahaan waaxda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon ay soo saartay madaxweyne Trump ayaa soo saaray amar madaxweyne oo shirkadaha maalgashiga ee Mareykanka looga mamnuucayo inay qayb ama xitaa saami ka iibsadaan shirkadaha Shiinaha ee xayiraadda la saaray laga bilaabo kowda sanadka soo socda maamulka madaxweyne Trump ayaa sidoo kale adkeeyay shuruucda iyo waliba qaabka loola dhaqmayo xubnaha xisbiga shuuciga ee haya talada dalkaas Shiinaha iyo waliba qoysaskooda ee doonaya inay safar ku yimaadaan gudaha dalkaas Mareykanka tan iyo markii madaxweyne Trump uu xilka la wareegay 4 sano ka hor waxa is soo tareysay xiisada u dhaxaysa Shiinaha iyo Mareykanka gaar ahaan arrimaha ganacsiga waa taxsano waa tan ninkan ugu sareeyay sirdoonka Mareykanka uu sheegay in Shiinaha uu yahay halista ugu weyn ee xurriyadda iyana taamac ka hena Cabdi Fataax mas'uulkan waxa uu sheegay in Mareykanku uu yahay halista ugu weyn ee dimuqraadiyadda iyo xurriyadda caalamka kadib wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee adduunka sarkaalkan lagu magacaabo John ayaa waxa uu sheegay in Shiinaha uu awoodiisa si xoojinaya isagoo sida uu sheegay xadayo siraha dalka Mareykanka isla markaana shirkadaha Mareykanka suuqa ka sii saaraya madaxweyne Trump ayaa horay go'aan cad uga qaatay Shiinaha waxa uu xitaa xayiraado ku soo rogay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dalkaasi waxa uu canshuur ku soo rogay agabka ama qalabka lagu sameeyo dalka Shiinaha waxaanu Beijing in badan ku eedeyn jiray xatooyo farsamo hase yeeshee Shiinaha inta badan jawaabteedu way iska yartahay inkastoo mararka qaar ay dhacaysay in iyaduna ay ku soo rogto canshuuro waxyaabaha laga soo dhoofiyo gudaha dalka Mareykanka arinta ugu weyn waxay ahayd shirkadda Huawei oo ah shirkadda dhanka tiknoolajiyada oo laga leeyahay dalkaas Shiinaha oo Mareykanku isku dayay in uu suuqa ka saaro sarkaalkan ka tirsan marka sirdoonka Mareykanka waxa uu leeyahay Beijing waxay isu diyaarinaysaa in ay Mareykanka ay wajahdo cudud ahaan dhaqaale ahaan iyo waliba tiknoolaji ahaanna ay isku daydo ama isku taagto Mareykanka aad u mahadsantahay Xasan Cali Gil ayuu kaasi ahaa faafahinta warkaas ayuu la socodsiinaya halkaad kala socotaana waa BBC dhageystayaal u diyaar garooba qaybaha kale barnaamijka BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba saacaduna haatan waxa ay dul taagan tahay 7:14 daqiiqo gowa waqtiga bariga Afrika warar kale oo Soomaalida ku saabsan ayaa inoo soo socda balse markan kumanaan qof oo ajaanib muhaajiriin ayaa sanado badan waxa ay dhibaatooyin kala duwan ku wajahayeen gudaha waddanka Liibiya dadkaas oo ay ku jiraan Soomaali dhalinyaro u badan ayaa waxa ay ka cawdaan in maskax iyo jir ahaanba dhibaato weyn la soo gaarsiiyay arinta waxa uga sii daray Liibiya oo aanay ka jirin dawlad awood leh oo dalka oo dhan gacanta ku haysa taas oo dadka tahriibiye u sahasha in ay waxa ay doonaan ku sameeyaan muhaajiriinta haatanse waxa muhaajiriinta soo karay dhibaatadii oo qaar badan oo kamid ah waxa ay bilaabeen in ay isu diiwaan galiyaan sidii dib loogu celin lahaa dalkooda hooyo waxa kamid ah wiilkan oo isagoo xero qaxooti ku jira ii waramay walaal waxaan joognaa xero oo qaxooti dadka macnaha noqonaya lagu celiyo oo IOM-ta ee dadka keento oo dhowr ajaanib isku la jirno marka meel noocaas macnaha ku sugannahay oo
UN iidana keentay bal nooga waran markaa nolosha aad halkaas ku haysataan nolosha ku haysano nolol macnaha nafsadeena xataa ay ku faraxsan tahay ma ahan kuleeto aniga waxaan rabnaa inaan wadankeena u noqono laakiin alxamdulillah mar hadda caafimaad qabno goormaad tagteen wadanka Liibiya walaal waxaan tagnay adiga ilaa muddo adiga 3 sano joognaa oo dhibaatooyin isku jirnay oo meel madgafi iyo waxaas nagula dilaayay sila irfaadbo waa ku soo qaybsanay walaal laakiin alxamdulillah ilaahay wuu noo soo sahlay markii dambe waa ka soo baxnay magaalada caasimadana markaan imaanay dibkii rafaadkii aan soo marnay haddana niyadana siin weysay inaan bad iyo waxaas haddana nolosheena khalqiil soo gelinay dhibaatada aad soo marteen maxaa kamid ah in macnaha la jir dilo nagula dhibciyo baaco koronto nagula qabto walaal ma soo koobi karo waayo silaac xanuunyo badan gabdhaha ajaanib faraxumaysanayso adigana waxba aan ka qaban karin waxyaabo badanna way jiraan oo hadda marka adiga soo xasuustay niyadii isiineen inaa adiga sheego ma garanaysaa qaabkeed uga soo baxdeen dadka idin haystay ee aad sheegtay inay dhibaato jir iyo maskaxba idin geysteen adiga lacag barno waa nagala qaatay barki kalena koleetaba dee ilaahay baa noo fududeeyo adiga meesha dagaal iyo waxbaa ka jiro sidii baa meesha kaga soo carno kaga soo fakanay markaad timid adiga iyo dadka kula midka ah caasimadda Liibiya ee Tripoli aad ka soo baxdeen halkii ladinku hayay qaabkii kale ladinkula dhaqmay magaalada Tripoli bal ka waran walaal horta runta hadaa kala hadlo horta mar hadaa madowdahay Liibiyaankan agtooda wax aad ka tahay malahan waa wada cunsuriyaal wadankii nabad kuma joogi kartid iyo adigu xataa u shaqeynay sidoo bil waa ku siinaa ku leeyahay bisha kala kugu daraa bisha kalena markay gaarto waa ku siinaa ku leeyahay adiga ilaa ka xanaaqdo iskaga soo tagtay adoo xamaalad marka ajnabiga tahayna sida dadka kale lagu lama dhaqmaayo wax walba iibsanaysid waa qaali shaqada qabanaysidna wax fiican lagagama siinaayo waxna kama soo gadan kartid kiradina kama bixin kartid walaahi ilaa ay subaxii ilaa ay habeenkii walaahi bilaa xabad rootiya kaliya shaqada marka ku jirtid lagu siinaa iyo sharaab laba waqti adaa ka heshid alxamdulillah shaqadana habeenkii waxa ka tagay adoo tabcaana subaxina shaqadii adaa u soo kicin weysid kiradii iyo wixii cuntadaadii baa rabtaa oo danta waxay kugu kalifay inaad tagtid waxa ka helaysidna wax oo xataa noloshaada xakameyn kara ma ahan kadib maxaa dhacay UN iyo hay'adooyinkii raadinay marka raadino u tagnay dee runta u sheegno waxaan ku raadnay waxaan rabnaa inaan wadankeena ku noqono intaas rafaad aan soo marnay dee maanta waxaan go'aansanay dee wadankeena inaan ku noqono anagoo maskaxdeena tamaam ee tahay nacaliya haye kadib maxay sameeyeen walaal hay'abay nagu yireen wayna diiwaangeliyeen marka kuleetaba dee intaas iyadoo tahay ilaa hadda macnaha waxaa u baryoonay in la celiyo waaye ma aqaan markay qolo walbana meeshan waxaa u shaqeyso dadka safaaradda u fadhiyo waxaa tiri dadka waxa u dooda safaaradahooda idinka safaaradii Soomaaliya halkaas ma la xiriirteen anaga taas waa ka codsaneynaa oo dawladana baaq ugu direynaa safaaradana waa la hadalnay laakiin ma umaleynaayo safaaraddeena dee in noo soo jeedaba markaad aragtay dhibaatada halkaa idinku qabsatay iyo safarka aad soo gasheen ma filaysa in midan oo kale ay idinku dhici doonto ma filaynin walaal uma malaynin saana hadda u malaynahay wadankayga kama soo tagi lahayn qofka hadda ku maqlaya marka dhalinyarada ah ee laga yaabo inuu ku haminayo inuu wadadaas aad martay soo tacabiro maxaad u sheegi lahayd wallaahi waxaan ku dhihi lahay wadankiisa inuu iska joogo macnaha meel u dhaanto ma joogto dhibaatadan soo maray intaasaan ku filan haddii koleetaba maqlaayaan shacabkii gaajadaada kuu dhaanto wadankaaga xorriyadaada ku joogto hadda dhibaatadaas aad soo martay baa kugu dhalisay inaad dib ugu laabatid dalkaaga walaal goormaad filaysaan in laydin celiyo adiga iyo dadka kula joogaba wallaahi taa ma garanayno marba muddo baa noola qabtaa oo muddadaa markay gaartana haddana muddo kalaa noola sii qabtaa taa awgeed waaye waxaa macnaha u cawanayno dheheno dadkeena ha noo shaqeeyaan oo dowladeenana dee ha ogaato macnaha dee in meeshaan dadkii u baahan yihiin in wadankooda lagu celiyo waayo wadamada kale iyaga aqbaleen oo macnaha dadkayga halii soo celiya dhahaan waa la celiyaa anaga markaa ma garanayno sababta oo ilaa hadda noola celinayo marba muddo noogula bedelayo taabaa garan waaye taa awgeeda macnaha rabnaa inaad dowladeena na caawiso oo dee si degdega dee arrinteena noogu gasho kaas waxa mid kamid ah Soomaalida ku tabaalaysan wadankaasi Liibiya oo khadka teleefanka igu waramayay Facebook aan fursad siiyo qaar kamid ah dhageystayaasheena ay ra'yigooda halka kaga soo dhiibtay Sayid Cumar Cismaan Cabdulle oo ka soo qoray magaalada Dhuusamareeb wuxuu leeyahay
soomaalida muhaajiriinta ee ku goodoosan dalka Liibiya ee sheegay in ay muddo raadinayeen sidii dalkooda hooye dib ugu laaban lahaayeen runtii aad ayaan uga xumahay dhibaatada haysata Soomaalidaas waxaana ugu baaqaya dawladda Soomaaliya inay dalka dib ugu soo celiso muwaadiniintaas ku goodoosan Liibiya Cabdullaahi Cagayare oo boosaaso ka soo qorayna wuxuu leeyahay Soomaalida ku tabaalaysan dalka Liibiya oo sheegay inay baadigoobayeen runtii sidii dalkooda ay dib ugu laaban lahaayeen runtii waa arrin laga xunnaxo Soomaalidana waxa lagu yaqaan dad isku gurmada oo iscaawiya marka waa in dadkaas tabaalaysan loo gurmadaa sidii ehladooda ay ula midoobi lahaayeen oo aanan loo kala dhantaali lahayn oo aan loo kala harin dawlad iyo shacabba waxaan qaar kamid ah dhageystayaasha BBC ee Facebook waa tahay markanse qaar kamid ah dhaqaaliyahanada Soomaaliya ayaa waxa ay ka digayaan in hadaanan si degdeg ah wax looga qaban sicir bararka shilinka Soomaaliga ay arintaas dhibaato weyn u horseedi karto dadka ganacsada ee yaryarka ama ganacsada yar haysta hadalkan ayaa wuxuu imanaya xilli maalmihii la soo dhaafay ay xirnaayeen qaar kamid ah suuqyada Puntland kadib markii dawladda maamulkaas ay shaacisay in canshuuraha dekada iyo kuwa kaleba lagu qaadi doono dollar oo kaliya waxa arinta uga sii daray ganacsada waaweyn oo iyana diiday inay shilin Soomaaliga wax ku iibiyaan hadaba maxaa dhici kara oo ku dhici kara ganacsada yaryar ee aanan heli karin dollarka su'aalahaas iyo kuwa kale waxaan weydiiyay Axmed Shire Axmed oo ah bare wax ka dhiga jaamacadda Puntland State University khadka telefoonka ee Garwa ayuu ugu waramay xilligan lagu jiro waxaa isa soo taray dhibaatooyin muddo taagnaa oo shilinka Soomaaliga oo muddadii u dambeysay ba aysan jirin dawlad dhexe oo wax ka qabatay xilliga ugu dambeysay bangiga dhexe shaqeynayay 9-maadkii bay ahayd marka lacag waqtigeedii dhaaftay markii dambana 2000 wixii ka dambeeyayna dawladihii kala duwan oo Puntland soo maray shirkado ay daabici jireen lacag adigu soo biirbiirsaday oo aan la dhihi karin lacagta sharciga ahayd baa dadku isticmaali jiray dawlad kastoo Puntland soo martay si bay wax u maareyn jirtay adu aakhirkii xilligan waxa la isdhihi karaa in xanuunkan Covid-ka iyo saameyntiisu dhinac bay kaga didkan tahay arrintan oo waxa yaraaday lacagihii adka ee wadanka soo gali jiray haday noqon lahayd lacagihii la soo diri jiray haday noqon lahayd dhoofkii xoolaha dollarku waa yaraaday suuqa ku jira shilin Soomaaliga oo dawladan ka horeysay ay daabacday iyaduna saameyntiisu hadda aad loo dareemo lacag tiro badan bay noqotay iyo shilin oo goboladii kale Soomaaliya ka joogsaday marka waxa la dhihi karaa arrimo dhowr oo isbiirsaday oo waxay keeneen in lacagta dollarka suuqa taalayna ay yaraato markaas baahida dollarku aad u badatay shilin Soomaaligiina oo aad u tiro batay isticmaalkiisina marba mar ka dambeeyay oo si yaraaday saameynta leeg ayaa arintan ka dhalan karta markaan eegno dadka danyarta ee nolol maalmeedkooda hadba maalintaas la soo baxa qiyaastii ganacsatada yaryar waxa ugu badan oo hantidooda ku cabiran tahay oo ku kaydsan tahay waa shilin Soomaaliya qiyaastii waxa lagu qiyaasaa lacag gaaraysa 70 bilyan oo shilin Soomaaliya oo dhihi kara ku jira suuqa marka dadku waxay haystaan shilin bay ku haystaan hantidooda haddii shilinka isticmaalkiisii uu istaago sida hadda muuqata waxa baaba'aya dadka hantidoodii tusaalahaan oo kale nin aan la kulmay magaalada Garowe waxa uu tilmaamay inuu haysto lacag 40 milyan gaaraysa haddii la yiri shilin Soomaaliga lama isticmaalayo ninkaas waxa way sabool buucaawiya waxa ma haysto ganacsatada laftigooda kuwan waaweyn ayaa qayb ka ah dhibaatadan la sooran kara ganacsatada waaweyn inta badan iyagu dollar bay ganacsigoodu ku salaysan oo dollar bayna wax looga iibsadaa iyaga waxa la dhihi karaa dollarkan yaraaday iyo saameynta arrintaas dhinac kaga xiran yihiin iyo ka ganacsiga lacagta qayb bay door ku leeyihiin laakiin inta badan transactionadoodu wuxuu ku dhacaa dollar cidda lacagtan isticmaali jirtay oo noloshooda ku xirneed oo ganacsigooda ku xirnaa ganacsatada yarbahay dawladdu isticmaalkeedii yareysay ba arrintan marka cirka ku sii shareertay iyadoo xal laga sugayay halkii marka dib kala keen dawladda Puntland baad soo hadal qaaday waxaan ognahay in canshuurihii ay lacag Soomaaliya ku qaadi jirtay bedeshay dollar dekada iyo canshuurihii kalaba marka maxaa ku dhaliyay inay sidan sameeyaan dawladdu waxay awal xalka islahayd ka raadiye in lacagaha koonfurta laga keenaa wadanka ba awal aad u soo gashay suuqa dadkii tala waxa lagu bixiyay si ganacsatada wax ku canshuurta shilin Soomaaliga aan banaanka ka imaaday oo Puntland ku soo qulay loo joojiyo hal la joojiyo lacagta dekada looga canshuurto marka tiiba waxay keentay in dadkii ay u fahmaan in dawladduba ay istaajisay isticmaalkii shilinka halka
markaas khatar kaloo dhibkii awal in laga hadlay dhib ka sii weyn baa meeshii soo dhexgalay dowrka dowladda dhexe ee federaalka iyana muxuu yahay marka lacag laga hadlayo lacagtu waxay ka mid tahay shanta shaqo oo dowladda federaalka ay gaar u leedahay lacagaha iyo maarayntooda waa shaqo dowladda federaalka iyaga laga rabaa inay xal keenaan ummadan waxay wax ku kala iibsan lahayd in loo badbaadin lahaa dadkan danyarta oo dhaqaalahooda khatarta ku jiro in xal loo helo shaqada ugu weyn waxay u taalaa dowladda federaalka ee Soomaaliya maadaama aad soo hadal qaaday inay tahay in xal loo helo dhibaatadan sidee xal loogu heli karaa arrintan sida wasiirka maaliyadda federaalka uu tilmaamay waa in 100 milyan la helo lacagtii cusbeed ee shilin Soomaaliga ahayd laga howlgalo in lacag cusub wadankan loo daabaco dhaqaalaha la wax lagu daabici lahaa sidii loo helaa in Soomaalidu iska kaashato baahida kale oo weyn loo qaban waxay in bangiga dhexe ee Soomaaliya uu shaqeeyo oo awood leeyahay bangiga maamuli kara dhaqaalaha wadanka iyo lacagihiisa uu yahay iyaduna waa arrin socoto wili laakiin aan dhameystirmin inta muddadaas laga gaaraya marka ee lacagtaas 100 milyan inta la soo ururiyay isu keeno dadka masaakiinta maxay ku noolaan doonaan muddadaas intaan dadka hawshoodu adkaan oo dhib ku sii xoogaysan dowladda Puntland si ku meel gaar ah waxa laga rabaa inay dib u soo celiso isticmaalka shilin Soomaaliga maanta kale war waxay dowladdu soo saartay in dowladaha hoose ay canshuurta ku qaadaan shilin Soomaaliga in warkaasu waa soo saartay dowladda laakiin waxa la rabaa in la fuliyo dadku ay arkaan in dowladdii ay lacagta isticmaalayso hadii dowladda la arkay in lacagta isticmaalayso dib u suuq ugu soo noqon karaa isticmaalka shilin Soomaaliga laakiin dowladdu hadday ka baxdo isticmaalka shilin in dadku waxa ka baxaya warkii hore sidii isku dhaqaaqaya dadkan saboolkan xaaladiisu waa aad bay khatar u tahay markaa kaas waxa uu Axmed Shire Axmed oo ah bare wax ka dhiga jaamacadda Puntland State University oo khadka telefoonka igu waramayay markana sheeko ka duwan sheekooyinka aad qaybaha hore ee barnaamijka ku soo maqasheen hasaawaha iyo xudxudashada haweenku waxay ka mid yihiin xirfadaha adag ee Soomaalidii hore lagu qadarin jiray isku qadarin jireen markay timaado in ninka uu la soo baxo gabadhii uu calmaday ragga iyo dumarka uma wada sinayn hasaawaha ee waxa jiray kuwa aan lagu dhicin sidaas oo ay tahayna meel gaar ah oo lagu barto xirfadda hasaawaha ma aanay jirin hasaatee waxa la sheegayaa in dhalinyarada haatan jirta ay la dala dhacayaan qaabkii ay qofka ay doonayaan ku soo xirgashan lahaayeen iyadoo arrintaas laga duulayana waxa magaalada Muqdisho lagu qabtay aqoon kororsi ku saabsan qaabka dhalinyarada gurdoonka ay ku soo xulan karaan qofka ku habboon noloshooda umurtaas waxa warbixintan inooga diyaarisay wariyahayaga magaalada Muqdisho Bella Sheego aqoon kororsiga naadirka ah ayaa dhalinyaro badan isugu yimid si ay wax uga fahmaan qaabka loo xulanayo lamaane si ay u dhistaan qoys wanaagsan dhalinyaradan oo boqolaal ah oo isugu jira wiil iyo gabdho ayaa ka soo qayb galay kuwaas oo u badan kuwa aan wali guursan balse doonaya in wax loo iftiimiyo xasan sheekh Cumar waa macallinkii bixinayay cashirkan waxaana weydiiyay bal waxa xilligan uu u doortay in mowduuc noocan oo kale ay u qabtaan dhalinyarada gurdoonka ah waxa kamid ah waxa noo muuqday waxaan maanta mujtamaca ay aad u isticmaalaan bulshada ee la yiraahdo social media inay fikradaha ay gudbinayaan fikrado fiican ay yihiin fikrado khaldan ay yihiin marka ay fikrado badan oo khaldan bulshada ay gaarayaan qodobkaas waa noo muuqday waxa kaloo noo muuqday dhalinyarta gurdoonka ah ee dalka ku nool sidoo lambarka dhalinyarada ee mujtamaca Soomaaliga bulshada Soomaaliya inuu aad u kordhayo kadibna ay u baahan yihiin talin fiican waxa kaloo noo muuqatay aragtida guurka laga haysto inay xilliyada qaarkood isu bedelayso aragti ku dhisan si oo maartay marxaba si kaftan ama ciyaar dadka isu guursadaan haddana si kaftan ciyaar loo kala tagay mid kamid ah dhalinyarada barnaamijkan ka soo qayb galay oo lagu magacaabo Firdawsa Cabdiraxmaan Cusmaan ayaa ii sheegtay in fikirkeedii hore ay wax iska bedeleen kadib markii cashirkan ay qaadatay ragga ay way damac badan yihiin oo xumaanta kula rabay iyo kan wanaag kula rabo kala garanayeen laakiin maanta waxaan ogaaday qof oo ani ibanaynay noloshiisa rabo in wax walba oo xumaan iga ilaalinayo in qof oo aniga yani oo wax badan iga saray inuu yahay oo qof yani waxba aan igu dhaamin inuu noqon qof aan iga liito inuu aan qof mas'uuliyadiisa qaadi karo inuu yahay wax badan aan ka qaybin waayihii dambe waxa uu jahwareer badan haystay dhalinyarada dhanka guurka taas oo sababtay in tirada furiinka ay aad u sarakacdo balse mowduucyada noocan oo kale ah ayaa muhiim ah si ay u fahmaan halka ay dhibaatada ka jirto xalkana loo helo dhalinyaradana ay u dhistaan qoysas wanaagsan Bella Sheego BBC Muqdisho warbixintaas ayaan idaacadii ku soo gabagabeynaya ee nabadgelyo